hadda waxaan ka hadlaynaa waxay kala duwan yihiin saddexda article oo ah a iyo an iyo the. A, an iyo the. Okay, maxay kala duwan yihiin? Waxaa soo raacinaa nounsiga ama kelmadaha oo ku bilowdaan xuruufa oo ah consonants. Consonants waxaa ah xuruufaha badankooda xuruufaha haddii laga saaro 5 xaraf oo ah vowelsiga. Vowelsiga waxaa waaye shaqalada a, e, i, o and u. Okay, inta kale oo dhan waxaa waaye consonants. For example, b, c, d, f, g, h iyo kuwa ka dambeeya. Okay, so kelmadda haddii ku bilowdo xaraf oo ah consonant waxaan ka hormarsiinaynaa a. Example ahaan maxaan qoran karnaa kelmadda c ka bilowdo, for example cat. Cat waxaa dhahaynaa a cat. A cat maxaa dhahnaa waxay ku bilowday xarafka oo c ah. Xarafka c na waxaa waaye consonant. Okay, haddaan imaano midda labaad an. An nounka waxaa kasoo hormarsiinaa hadduu nounka ku bilowdo xaraf oo ah vowel. For example apple. Apple waxaa waaye kelmad ama noun oo ku bilowdo xaraf oo ah vowel. A oo ku bilowdo ma jeeda waxaa waaye vowel. Marka waxaa dhahaynaa an apple. An apple. laakiin the haddaan ka hadlayno wax oo specific ah, wax oo la yaqaan oo la garanayo, waxaa dhihi karnaa the cat. bisadii. Kan waxaa waaye bisad. Kan waxaa waaye bisadii. Okay, waa bisad la garanayo. midda labaad an apple hadduu inta yahay oo ah tufaax. haddaa dhaho laakiin inta the apple tufaaxi waa tufaax la garanayo. kan wuxuu noqon karaa tufaax kasta maadaama tufaaxa badan yahay. inta hadduu badan yihiin bisadaha badan yihiin, laakiin midkan waxaan ka hadlaynaa hal mid keliya. Okay, waa wax oo la garanayo. Okay, sidaan hore u sheegay an nounka waxay kasoo hormarisaa nounka hadduu ku bilowdo xaraf oo ah vowel. Okay, a waxay kasoo hormaraysaa nounka hadduu noun ku bilowdo xaraf oo ah consonant. Okay, laakiin waxaa jira exception. Exceptionka waxaa waaye mararka qaarkoodii intay kelmadda ku bilowdo xaraf oo ah vowel waxaan ka hormarsiinaynaa a. marna waxaa jira nounka intuu ku bilowdo xaraf oo consonant ah waxaan ka hormarsiinaynaa an. goormaan saas sameynaa? Okay, exception waxay dhahaan when you sounds like you. markaan ugu dhawaaqna xarafka u-ga sida u oo kale. Okay, for example kelmad oo ku bilaabanaysa xarafka u-gan ugu dhawaaqayna sida u oo kale. University. University waxay ku bilaabatay u, dhawaaqeedana waxaa waaye sida oo u oo kale. Okay, so university. marka waxaa dhahaynaa a university. A university. Okay, a university. sidoo kale dharka la gashto oo iskuulka loo aado oo ah uniform. Okay, uniform. Uniformka. Okay, waxaa waaye u ku bilowday. u-gan dhawaaqeeda waxaa waaye sida oo u. marka waxaa dhahaynaa a uniform. Okay, a uniform ama a university. Okay, marka labaad waxaa waaye goorma exceptionka labaad when h is silent. When the h is silent. xarafka h hadduu soo horeeyo kelmadda uu yahay silent. Silent waxaa marka uusan loo dhawaaqayn. Okay, example maxaa noqon kara? For example hour. Okay, hour waxaa waaye saacad sama. Okay, hour. hour aadhahnaa inkastay h ku bilaabatay. h ku waxaa waaye silent. marka hour ma dhahayno waxaa dhahaynaa an hour. why? xarafka ugu horeeya ku dhawaaqayna waxaa waaye o. Okay, an hour aadhahne. h-ka waa ka tegaynaa. Okay, okay, mid kale jirta oo ah honor. honor waxaa waaye sharafta. Okay, marka waxaa dhahaynaa an honor. Okay, sharaf. honor. Okay, so labada exception waxaa waaye number 1 markaan xarafka u-ga ugu dhawaaqno sida kelmadda u oo kale. u adhan. Okay, university ama uniform. markaas an kama soo hormarsiinayna waxaa kasoo hormarsiinaynaa a university adhayna ama a uniform. Alright. Okay, midda labaad when h is silent. when the h is silent. h-ga hadduu yahay silent oosan lagu dhawaaqayn. for example an hour. saacad. Okay, an adhayna ama honor waxaa dhahaynaa an honor. Okay.